ها قابيل يا هابيل بده waxay isku laayeen power struggle bay ahayd laba walaalo islaayay bay ahayd xoolo isku laayay basically so marka sida de laynoogu sheego islamically waxa la yiraahaa maxay ahayd labaduba marna sheekadu waxa la yiraahaa gabdhay isku laayeen ya qabiil iyo habiil gabadh bay isku laayeen marna de colaadu naag bay ka timid marna waxay isku laayeen maxay ahayd waxay isku laayeen xoolo basically ya xoolahan xagee laga keenaa de ya wealth kan xagee ka timaadaa wealth inagu xoolaynu naqaanaaye ya marka reer galbeedku waxa magaca qabiil iyo habiil waxa weeye Cain and Abel baa la yidhaahaa waa dadkan iminka Canaanite ama kalcaaniinta noqon doona ya Cainna waxa la yidhahaa wuxuu ahaa xoolo dhaqato ama xoolo dhaqato ama de beeraley buu ahaa basically beeraley buu ahaa ya Abelna wuxuu ahaa shepherd oo wuxuu arigu raaci jiray madahanteen maalintii dhawatooniga wanka idinka sheekeynaya sheekada wanka Aries ya ilaan Aries baa hogaaminaya dayaxan cusube ama full moonkan waxa la yidhaahaa marka reer galbeedka waa sida bibleka iyo dee reer galbeedka sheekadu ayagu uga hadlayaan waxay ku leeyihiin Cain ama Kancaan ilaahay bay u mahad celinayeen oo isagu ilaahay wuxuu ugu mahad celinayo damiro ama fruit ya oo dhulkiisa ka soo baxday laakiin wuu diiday ilaahay inuu ka gudoomo ma ahayd inuu accept gareeyo offerkiisa ya laakiin Abel baa wuxuu offer gareeyey wanbu uu wanqalay ya oo de arigiisa kamid ahaa marka wankii buu accept gareeyey marka saasay isku laayeen Cain and Abel ya midna de mirahii beertiisuu siiyey ayuu ilaahay ugu mahadnaqay midna wuxuu u wanqalay ya nacam dhiig buu u daadiyey basically ya sheekada islamicallyna maxaa la yidhaha traditionka islaamkana waxaana la yidhahaa qabiil iyo habiil ya iyaguna sidoo kale isku laayeen in one version of the story so maaha habiil wuxuu ilaahay ugu madnaqay the sheep ya arigii qabiilna wuxuu siiyey qabiilada mirihiisa ya ayuu ugu mahadnaqay qabiil mirihiisii baa la diiday seedkiisii baa la diiday marka walaalkii habiil dhagax buu ku dilay ya markuu dhagax ku dilayna shay buu dareemay oo de wuxuu sameeyey buu arkay maogtahay markaasuu ilaahay usoo diray tuke oo tukihii baa tusay suu u aasi lahaa maydka walaalkii marka Soomaalidu shimbirtooda ya waa tukaha weey ileen tukuhu markuu group dhan geerida wuu xitaa geerida marka geeri dhacayso dhan wuu og yahay way isku wacaan wadarta dharka way madow yihiin dharka madow ee geerida la xidhanayo halkaas ay ka timid sheekadaasi ya carabtuna waxa batiraahaba waxa madow hala dilo ya it's very strange sheekadaas ay u gadiyeen ya dadka madow hala naco waxa madow hala dilo hadda waa tukihii orod soo tukoba sheekadii orod soo tuko ilaahay u mahad celi marka lagu leeyahay de tukahay ka timid iyo sheekadii ku saabsanayd habiil iyo habiil ya iyo tukihii yimid tukihii tusay suu walaalkii u aasi lahaa ma fahantay markuu ogaaday wuxuu sameeyey ya taasina waxa weeye taasina waxa ku jirta Somali lesson ya lesson dheer baa ku jirta ya labadii ugu horeeyay adduunka ciyaalkoodiisa isku laayeen baa lagu sheegaya marka qabiiladan iyo reerahan ma aragtay kolba islaynaya inaad fahantiin baa la rabaa ya laakiin de qabiil baa idin wada qaaday sama wallahi billahi waa dad waalan baa tihiin dad waalan ya laba walaalo ya marna waxa lagu leeyahay gabadh bay isku laayeen marna waxay isku laayeen de xoolo iyo wealth iyo power marka tiim baa socota adduunku wali waa sidii madahanteen laakiin imika the last hour baa la joogaa tani waa tii la isku baabiinayay ya
والله dadkiinu haddaydan is qabanin raggan weliba specially naagahan durbaanka u tubaya habrahan waalana make sense marka la yidhaaho habraa la isku laayay naagaa la isku laayay ya ilan habraa islaynaya qabiilo habra ka tirsan baa islaynaya and sheekadii xawayaanka aynu